رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، دعاء لبس الثوب مرة مركا للبسنا دعاء الآخر لها طوبك ونرك الحمد لله ده إلهي بابا إسكال الذي عليه كساني يقول هذا الثوب مرضا ايتن ورزقني يقول ارزقي من غير حول مني ولا قوة اودي حيل اللهان حقيقة awood aan ku keensan lahaa ma jirto, xeelad aan ku xiran lahaa malaha. haddii caqliga lagaa qaada miirkaaga uu jirin marada ma xiran kartid. sidaa darteed ilaahay baa mahad iskale. alxamdu lilaahi aladii ilaahay yaa mahad iskale kasaanii haada thawba maradaan igu marasheeyey warasaqanii iguna arsuqay min gayri xawlin minii walaa quwa oo xeelad iyo awood xaggayga ka ahaatay iyadoo markaa ahayd. ducaau midana waa duco oo lubsi thawbi aljadiid, taasi waa doonka caadiga, laakiin ducadan mara cusub markaad soo galato waxaad dhihi lahayd waaye allaahuma laka alxamdu. maradii cusbeed ayaad bacda ka fiiqday, waad guntatay, waxaad dhahdaa allaahuma laka alxamdu. ilaahayow mahad io ammaan adaa iska leh. anta kasawtaniihi adaa imarasheeyey. hadhihin anaa soo gatay, lacagteediiyaan ku soo gatay, anay xaaladeedu sidaa tahay. ileen ilaahaya kugu marasheeyey subxaana wa tacaala. as'aluka waxaan ku su'aalanaa min khayrihi maradan khayrkiisii wa khayra maa sunica lahu khayrkii loo sameeyey. wa acuudu bika waxaan kaa magan galaa min sharihi shartiisa iyo wa shari maa sunica lahu shartii lagu sanceeyey ayaan kaa magan galaa. ilan khayrna wuu noqdaa, sharna waa noqdaa. khayrka ilaahay weydiisa, shartana ilaahay uga magan galo. khayrkiisaan ku weydiisanaa maradan khayrkeeda, inaan salaada ku tukado, inaan ku caabudo, inaan kugu caabudo adiga, inaan khayrka ku sameeyo, inaan diinta alla kula xoogaysto. waxaan kaa magan galaa sharteeda, in dhib iyo waxyaabo ay ii soo jiida, in laygu halaago oo macaasi aanu isticmaalo, meelaha fisqiga markaan aadayo inaan guntado. intaasoo dhan ayaan kaa magan galay de. ilaan dharka laftigooda way kala nasiib badan yihiin. dadaa dhar intay soo gataan diinta alla u adeegsada, oo ciidda ku tukada, oo taraawiixda ku tukada, oo leylka ku tukada. kuwa kalena intay dhar iyo surwaalo soo gataanay fisqi iyo zina iyo xumaan u aadaan, ayna u adeegsadaan. xaaladda noocaasa waaye. marka qofku waa inuu khayrkana ilaahay weydiistaa, sharteedana ilaahay ka magan galaa. adducaau liman labisa thawban jadiidan waa duco qofkii mara cusub xirta wixii loogu ducayn lahaa. tii hore anaa ducaystay, maanta qof ayaad ku aragtay dhar fiican asagoo wata. maxaa samaynaysaa? tubliidhe wayukhlifu allahu tacaala. baabi'i maradan. baabi'i waxaa loola jeedaa hortaada ha dhammaato. ilaan marada markii hortaada dhammaato waa cumri dheera lagugu duceeyey. wayukhlifu allahu tacaala ilaahayna bedelkeeda fiican ha ku siiyo. waxaa kaloo dhahdaa ilbis jadiidan, ayadoo cusub labiso. wa cish xamiidan, adigoo sharaf leh noolow. wamut shahiidan, shahiidnimana ku dhimo. qabiil iyo waxyaabo kaleba waa loo dhintaa. sidaa darteed diinta ilaahay adoo difaacaya ku dhimo waaye. ilbis jadiidan wa cish xamiidan wamut shahiidan. waa qofkii dhar fiican aad ku aragto. maa yaquulu wuxuu qofku dhihi lahaa idaa wadaca thawbahu markuu maradiisa dhigo. dharkaad iska dhigaysaa maxaad dhahaysaa? uf maradama wax la qaato ah iyo waa laygu soo siray ha dhihin. bismi illaahi dhe keliya ilaahay magaciisaad ku siibaysaa. ducaau dukhuuli lkhalaa'i musqusha marka la gelayo ducadii lagu ducaysan lahaa. anagoo heesaynaan galnaa maanta musqulaha, markaasaa maalin walba waxaad arkaysaa jiniya ku dhacee qur'aan ha la saaro. waa laga soo dhex qayliyey. ilmo jiniya ku istaagtay, ilmo jiniya ku istaagay. maca daalika ducada iska aqri marka hore. bismi illaahi dheh
ilaahay magaciisa ku gelaya allahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magan galay min alkhubuthi waalkhabaa'if shaydaanka kiisa lab io kadadiga ah khubuf iyo khabaa'if khubud waa shaydaanka midkiisa xumu ee ragga ah waaye khabaa'if waa kadadiga ah ama dumarkaa sidaa darteed shaydaanka ilaahay ka magan gal musqulaha qashinqubiyada meelaha gorodka waa amaakinta loogu rajo badan yahay inay shayaadiintu joogaan sidaa darteed ha ku sheekaysanin musqusha dhexdeeda ha ku dhex hadlin wax kale ha ku tilmaamin markaad gelaysa bismillaahi de isimka ilaahay qabso ileen ilaahay magaciisa barako iyo karaamuu leeyahay waxaad kaloo dhahdaa allaahuma inii acuudu bika ilaahayo waxaan adigu kaa magan galay ileen qof kaloo laga magangeli karaa ma jiree min alkhubuthi waalkhabaa'ifi shaydaanka kiisa labkaa iyo kadadigaa labadaba ilaahayow adaan kaa magan galay musqusha saasaa loo galaa si looga badbaado dhibaatooyin fara badan shaydaanka ilmihiisa yaryarkaa dhici karta inay meesha fafadhiyaan haddaad ku istaagto lagaa soo raaca waa nin maca daalika dhibaato fara badan ayay leedahay deeqo qofaa laga asiibay musqulaha oo ilaa hadda daawo loo la'yahay maca daalika waa inay marka hore sameeyaan waxa lagu magacaabo wiqaayo waayo alwiqaaya khayru min alcilaaj ka hortagga daawada way ka fiican tahay cudurka intuusan kugu dhicin ayaa fiican inaad ka hortagto ducaau alkhuruuji min alkhalaa musqulaha oo laga soo baxo ama marka laga soo baxo wixii markaa lagu ducaysan lahaa dukhuululkhalaa marka la dhaha waa marka aad geli rabto ilaan markaad gasho gudaheeda ilaahay laguma xiso wax walboo magac ilaahay ku qoran bannaankaad dhigaysaa silsilada allah ay ku qoranta hadday ku labisan tahay dhig bannaanka faraatiga hadduu ku qoran yahay magac ilaahay bannaanka dhig kitub haddaad wadato bannaanka dhig shay walba oo khayr ah la gelin musqusha waxna laguma aqriyo markaad ka soo baxda maxaad dhahaysaa gufraanaka ilaahayow dembi dhaafkaaga in badan ayaan musqusha ku jiray maca daalika rabbow in lagu xusay ahayd saacad walba inaan ku xusnaadna amartay kuma xusina ii dembi dhaaf macnaha waa sidaa gufraanaka amase ilaahayow dembi dhaafkaaga ilaan dhibaato fara badan ayaa i haysay musqusha ayaan galay inay waxaani wasaqdan iga soo baxaan adiga ayaa ilaahayow sabab u ahaa adiga ayaa xaaladaa keentay maca daalika sidii la rabay makuu caabudi karnee ilaahayow markaa noo dembi dhaaf ilaan qofka mar allaala marka uu musqulaha galo arrin cajiib badan waaye sida ilaah tilmaamay wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna nafafyaalkiina calaamad baa ku jirta biyaha iyo cuntada hal maxal bay ka galaan laba maxal buu alla ka soo kala bixiyaa subxaana wa tacaala ma awoodi kara xaaladaa takhaatiirta iyo kuwa jaamacadda ka soo baxay ilaa ilaahay maahane subxaana wa tacaala sidaa kale waxaa la yidhaahdaa alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa allihii dhibka iga bixiyey ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala ilaan dhibaato fara badan iyo cudray kugu noqon lahayd addikru qabla alwuduu'i inta aan la weysqaadanin ka hor sidii ilaahay lagu xusi lahaa maxaad dhahaysaa markaad rabta inaad weysqaadato ama weysqaadka aad rabta inaad bilowda bismi illaahi keliya dheh wax kale oo la akhriyaa ma jiro sidaa darteed waa la niyeysanaa bismillaahi waa dhahaysaa haddaad bisinka ilowda weysqaadkaaga waa kuu jiraan wax dhibaataa markaa ma laha addikru bacda alfaraaqi min alwuduu'i marka weysqaadka la faaruqo oo la dhammeeyo sidii ilaahay lagu xusi lahaa subxaana wa tacaala weysqaadkaad dhammaysay maxaad samaynaysaa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluhu dheh ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah ilaahay xaqnimo lagu caabudo ilaahay aan ahayn inuusan jirin waxdahu xaalo uu keligiis yahay laa shariika lah shirkina uma sugnaanin wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxamed cabduhu wa rasuuluhu addoonkiisa iyo rasuulkiisa inuu markaa yahay intaa waxaad raacsiinaysaa allaahuma jcalnii ilaahow iga yeel min altawaabiina kuwa tawbakeen ka badan mar walboo qalab ka dhaca istikfaar weydiista wajcalnii igana yeel min almutatahhiriina kuwa isdahira kuwa isnadiifiyo ilaahayow igala mid dhig kuwa tawaabiintana igala mid dhig labadaba ilaahay waa jecel yahay ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahhiriin dadka isdahira ilaahay waa jecel yahay dadka weysaqaata waa jecel yahay weysqaadkaan ka tagtay salaadiyanba la tukanina maxaa la weysqaataa maanta marka la tukanayo la weysqaad imaana sidaa darteed dadka mutatahhiriinta ah oo isdahiraaya dembiga iska tahiraaya xumaanta iska tahiraaya zinada iska tahiraaya waxuu alla diiday oo dhan iska nadiifinaaya jasadka iska tahiraaya dharka tahiranaya ilaahay waa jecel yahay
min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin. inaa laga yaabaa inaad dhahdo adigoo isla socda soo bax masaajidka waa la adimaya, surwaalkayga daahir ma uu ku leeyahay. sarwaalkeyga daahir ma aha, asoo ula jeeda asoo masaajidka diidaay. waa run daahir ma aha, inama almushrikuuna najasun. ninka salaada ka taga waa mushrik, mushrikiintana waa najaaso dhahay ila subxaana wa tacaala. min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriina. subxaanaka intaa waxaad ku daraysaa subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka. subxaanaka ilaahayow adigaa nasahan, allaahuma yaa allah ilaahayo wabixamdika mahadna aday kuu sugnaatay. ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ilaa anta ilaah inuusan jirin aan adiga ahayn. astakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaa wa atuubu ilayka xaggaagana waan u soo noqonayaa. addikru xuskii cinda alkhuruuji min almasjidi, marka guriga laga baxayo wixii alla lagu xusi lahaa, iyadoo la guryamaayo, la qaylinaayo, la dagaalamayo, ninkiin agta iscaynayana guriga laga baxaa maanta. laakiin sidii la dhihi lahaa buu noo tilmaamaa nebiga. bismi illaahi de tawakaltu cala allahi walaa xawla walaa quwata ila billah. bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku baxayaa. tawakaltu cala allahi ilaahay ayaan talada u dhiibanaa. walaa xawla caqli melihi bannaankaan u socdaa, shayaadiinaa taagan, ciyaal suuqaa taagan, dib dadraa taagan, dad shar socdaa taagan, dad jidka fadhiyo gabdhaha dulqiyaa taagan. ilaahayow caqli melihi aan isaga celiyo. walaa quwata awoodda melihi ilaa billaah ilaahay maahane. waxaad kaloo leedahay allaahuma innii acuudu bika ilaahow adiga ayaan kaa magan galay an adilla inaan dhumo, aw udalla ama lay dhumiyo, aw azilla inaan simbirraxdo, aw uzalla ama lay simbirrixiyo, aw adlima inaan wax dulmiyo, aw udlam ama lay dulmiyo, aw ajhala inaan jahli falo, aw yujhala calaya ama in dusheeda lagu jahli falo. intaana adaa kaa magan galay. waa marka guriga laga baxaayo. gurigaaga waad ku dhoorsan tahay. bannaanka markaad baxda dhib iyo dheefa waa la kulmaysaa. ilaahay talada u dhiibo subxaana wa tacaala. dhammaan iska xawil adiga talada. wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin. haddaadan mu'miniina tihiin talada ilaahay u dhiibta buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku baxaa dheh. tawakaltu cala allahi ilaahay ayaan talada saaranaa subxaana wa tacaala. tawakaltu waxaan tala saartay cala allahi. waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh. qofkii ilaahay talada u dhiibtay ilaahay waa ku filan yahay subxaana wa tacaala. walaa xawla walaa quwata ila billah. allahuma innii acuudu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala calaya. in laygu jahli falo, inaan simbirraxdo, oon dembi ku dhaco, oon xumaan sameeyo, oon wax xado, oon wax dhaco, oon dad dulmiyo, oo dhiiggooda daadiyo. intaasoo dhan adaan kaa magan galay. qoriga hore usoo qaadanaa maanta markuu soo baxay waa ku soo talagela inuu wax dhaco iyo inuu wax dilo iyo inuu dhiig islaameed daadiyo. shay xaalada mamnuuca waaye. addikru cinda dukhuuli lmanzili, guriga marka la gelaya agteeda wixii la dhihi lahaa. waxaana la baray markaan ka soo baxno waa noqonaynaa haddana gurigii ayaan ku noqonay. maxaan dhahaynaa qayla iyo quryana lagu galaa haddana iyo waxyaabo aan loo baahnay. bismi illaahi walajnaa dheh, wa bismi illaahi kharajna, wa cala allahi rabbina tawakalna, uma layusallim calaa ahlihi. bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku gelayaa gurigayga. bismi illaahi walajna ilaahay magaciisa ayaan ku gelaynaa. wa bismi illaahi kharajna magaciisaan uga baxaynaa. wa cala allaahi ilaahay dushiisa oo rabbigeena ayaan tawakalnaa tala saaranaynaa. sidaa dheh ilaahay magaciisa xuska baraka iyo wanaagaa ku jire. markaad bismillaahi gurigaaga ku gasho shaydaanku bannaankuu ku haraabuu dhahay nebiga. shaydaan kaloo kula socdaa jira oo mtaqaanaa jasadkaaga ku jira. mar alla markuu kaa kula soo gala cuntada marka laguu soo dhigo bismillaahi haddaad dhahdaa seena bannaanku u soo baxaa raashin ma laha. waa seexatay ehelkaaga ayaad rabtaa bismillaahi ayaad dhahday bannaankuu soo baxaa. naagna maluu leeya raashinna malaha, gurina ma laha. bannaankuu fadhiya habeenkii oo dhan. adoo foorinayaa soo gashay, adoo qaylinayaa soo gashay, cashadii aaway adoo dhahayo kuryamayaad soo gashay waa kula soo gela. sidii baad ku cuntay waa kula cuna. ehelkaaga ayaad u tagtay bismillaahi ma dhihin. farxad iyo rayreen buu ku jiraa. guri iyo naag iyo raashinba waa heloog leeyahay. maca daalika waa dhibaato badan shaydaanka in la buriyo ayaa fiican. uma layusallim calaa ahlihi, ka gadaal ehelkiisa ha salaama sida ilaah tilmaamay. waidaa daqaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan طayiba. ducaau dihaabi ila almasjidi. marka masaajidka la aadaya allahuma ajcal fii qalbii nuuran
ilaahu qalbigayga nuur yeel wa fii lisaanii nuura, carabkayga nuur yeel wa fii samcii nuura, dhegahayga nuur yeel wa fii basarii nuura, indhahayga nuur yeel wa min fawqii nuura, korkayga nuur yeel wa min taxtii nuura, hoostayda nuur yeel wa can yamiinii nuura, midigtayda nuur wa can shimaalii nuura, bidixdayda nuur wa min amaamii nuura, hortayda nuur wa min khalfii nuura, gadaasheeda nuur wajcal fii nafsii nuura, nafteyda dhexdeeda nuur allow yeel wa acdim lii nuura, ilaahu nuurka ii weynay wa cadim lii nuura, adigana nuurka ilaahayow ii weynay wajcal lii ii yeel nuura, nuur ii yeel wajcalnii nuura, wajcal lii nuura, nuur alli ii yeel ii sugnaaday wajcalnii nuura, ilaahayow nuur ii yeel, allahuma actinii nuuran, ilaahayow nuur isiiya wajcal fii casabii nuura, ilaahayow casabadaydii xididadeeda nuur yeel wa fii laxmii nuura, hilibkayga nuur yeel wa fii dambii nuuran, dhiigkayga nuur wa fii shacrii nuura, timihayga nuur wa fii basharii, basharkayga waa jasadkaygee nuuran, allahuma ajcal lii nuuran fii qabri, ilaahayow qabrigayga dhexdiisa nuur ii yeel wa nuuran fii cidaamii, lafahayga dhexdooda wazidnii nuuran wazidnii nuuran wazidnii nuuran, ilaahayow nuurka ii kordhi oo ii siyaadi wahablii nuuran calaa nuurin, ii hibay nuur nuur korkiisa ahaaday, nuurun calaa nuur yahdi allaahu linuurihi man yashaa, ilaahay nuur nuur korkiisa ahaaday ayaa u sugnaaday, qofkuu doono ayuu ku hanuuniyaa, allaahu nuuru samaawaati waalard, ilaahay nuurka samaawaadkii arlada asagaa iskale, ama waa midka nuuriya samaawaadkii arlada, sidaa darteed ilaahay qof allaala qofkuu u doono ayuu nuurkaa u yeelaa, nuurkaas ayuu ilaahay u sameeyaa. awaman kaana maytan, qof mayd ahaan jiray buu dhahay ilaahay, oo fa axyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi fi nnaas, nuur aan u samaynay dadka markaa ku dhex maraya, kaman matalahu fi dulumaati, mid mugdiyaalo iyo jahli iyo shirki iyo macaasi iyo islaam la'aan iyo soon la'aan ku dhex jira, ma isku mid baabuu dhahay ilaa subxaana wa tacaala. nuurka lagu tilmaamaya nalka iftiimaya loolama jeeda waa nuurkii iimaanka, waa nuurkii hidaayada, waa nuurkii xaqa, waa nuurkii cilmiga, waa nuurkii diinta, taasaa markaa loola jeedaa. sidaa darteed ayuu ilaahay nuur u samaynaa qofka diinka alla isku nuuriya maalinta aakhiro. dad fara badan ayaa mugdi ku jiro iftiinka katame, markaasay dhahayaan rabbanaa atamim lanaa nuurana, ilaahu nuurkeenna noo taamil ha naga damini. ducaau dukhuuli lmasjidi, masaajidka markaa lugta sii gelinaysa waxaad dhihi lahayd waayo lugta midigta ku hormari, acuudu billaah. musqulaha marka la gelaayo waa soo tilmaanay, lugta bidixda ayaa lagu hormariyaa, marka laga soo baxayo lugta midigtaa lasoo hormariyaa. masaajidka marka la gelaayo lugta midigtaa hormari, markaad ka soo baxaysana lugta bidixdaa soo hormarinaysaa. acuudu billaahi alcadiimi dheh, wa biwajhihi alkariimi wa sulطaanihi alqadiimi min ashayطaani arajiim. acuudu billaahi, ilaahay ayaan ka magan galay allihii alcadiimi ee weynaa, wa biwajhihi alkariim, wejigiisa kariimkee sharafta badan ayaan magan galay, wa sulطaanihi alqadiim, awooddiisii sarraysay qadiimkaheedee gaboodee horaysaan ilaahay ka magan galay, min ashayطaani arajiim, shayطaanka rajiimkee la rajmiyey oo la fogeeyey oo naxariista laga dhaqaajiyey, kaasaan ilaahay ka magan galay. waxaad kaloo dhahaysaa bismi illaahi waasalaatu wassalaam calaa rasuuli illaahi, allaahuma aftax lii abwaaba raxmatika. bismi illaahi, ilaahay magaciisaan beydka alla ku gelayaa, waasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa rasuuli illaahi, rasuulkii ilaahay korkiisay ahaatay, ama allah yeelo duca uga dhig, allaahuma aftax, allaahuma ilaahayow iftax lii ii fur abwaaba raxmatika, masaajidka raxmad ayaa laga helaa, albaabaha naxariista ilaahayow ii fur. ducaau alkhuruuji min almasjidi, masaajidka marka laga soo baxayo wixii lagu ducaysan lahaa ayaan ka gelaynaa. haddana masaajidkaad rabtaa inaad ka soo baxda beydkii ilaahayaad ku jirtay, naxariisaa maantoo dhan korkaaga ku daadanaysay, malaa'igta ayaa kuu ducaynaysay, shaydaanka ayaa ciilhay bannaankuu kugu sugooyaa, wixii aad dhihi laheedaa la rabaa. haddana bismi illaahi, marka horeba lugta bidixdaa soo hormari, bismi illaahi waasalaatu wassalaamu calaa rasuuli illaahi. allaahuma innii as'aluka min fadlika dheh, ilaahayow fadligaaga ayaan ku su'aalana, beydkaagaan ka soo baxay, adaan ku caabuday, risqi ayaan u baahanahay, owlaad ayaan leeyahay, waxaa layga rabaa waxyaabo fara badan oo bil adduun ahee, ilaahayow fadligaagaan ku weydiistay ii saqir. allaahuma acsimnii, ilaahayow igana ilaali min ashayطaani arajiim,
shaydaanka rajiimka ilaahayow iga cisimi oo iga ilaali, waa kuwaana bannaankay joogaan, beydkaagaan ku jira, maantoo dhan badbaadaan ka qabay, hadda iinka xaggoodaan u socdaa, wax kaloo iga ilaalin kara ma laha. dhib iyo rafaad ayay dadka ku haayaan, waa baadiyaynayaan, xumaanay u wadaan. salaada labaad inaan soo noqonin ayuu rabaa. allahuma acsimnii min ashaytaani arajiim. ilaahayow shaydaanka rajiimkaa iga ilaali. sidaa ayaad dhahaysaa markaad masaajidka ka soo baxdo. adkaaru laadaani, aadaanka adkaarteedii waayo marka ilaahay salaada loo aadaamaayo wixii adkaar ahaa oo loogu talagalay. yaquulu wuxuu dhahayaa qofka midla maa yaquulu lmu'adinu, ninka mu'adinkaa waxa uu dhahayoo kale ka daba dheh. wax allaala wuxuu yidhaahda ka daba dheh. allaahu akbar, allaahu akbar hadduu dhaho allaahu akbar, allaahu akbar dheh adigana. ilaa fii xayi cala asalaati wa xayi cala alfalaaxi maahane. xay calataynka maahane, waa labada xayi cala asalaa iyo cala alfalaaxi, labadaa ha ka daba dhihin. fayaquul wuxuu dhahayaa qofka maqlay laa xawla walaa quwata ila billaah. xaya cala asalaad markuu mu'adinka dhaho xaya cala salaad ha ka daba dhihin. xaya cala alfalaax hadduu dhaho ha ka daba dhihin, booskooda ku bedel laa xawla walaa quwata ila billaah. midla maa yaquulu lmu'adinu ila fii xaya cala asalaati wa xaya cala alfalaaxi. saasaad markaa dhahaysaa xaya cala asalaad, xaya cala alfalaax, laa xawla walaa quwata ila billaah. ilan xaya cala asalaad macnaheeda waa salaada u imaada, xaya cala alfalaax waa liibaanta u imaada. awood iyo xeelad aan ku imaada melihi ilaahayow ilaa inaad adiga isaacida maahane. sidaa darteed xataa haddaad masaajidka ku dhex taagantahay, ku dhex jirtood soo xaadirtay, laa xawla walaa quwata ila billaahi deh. meeqa gabaraa kaa xoog badan oo kaa hanti badan oo kaa dahab badan oo imaan karin oo salaada aanuu istaagi karin. meeqa dhinaa kaa xoog iyo caqli iyo karti iyo waxyaabo badan oo kaa waxa badan. xaya cala salaadaa la dhaha qaxwaduu fadhiyaa, xaya cala salaadaa la dhaha gurigiisuu jiifaa, xaya cala salaad ayaa la dhaha meeshuu rabuu u socdaa, oo masaajidka aan awoodi karin xataa inuu ku soo leexdo asagoo masaajidka agtiisa maraay. yaa ku keenay adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan dheh laa xawla walaa quwata ila billaah. wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah. ma awoodi kartaan, mana dooni kartaan ilaa inuu ilaahay doono maahana. yaquulu wuxuu kaloo dhahayaa qofka wa ana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu radiitu billaahi rabban wa bimuxammadin rasuulan wa bilislaami diinan. sidaana qofka waa dhahaa wa ana anigu ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah, alla meehe alla kaloo xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin, waxdahu xaala uu keligiis yahay laa shariika lahu, shirkina uusan u sugnayn, wa ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu, muxamedna addoon ilaah iyo rasuul ilaahay inuu yahay. radiitu billaahi, ilaahay ayaa rabban rabbinimo uga raalli ahayo uga raalli noqday. rabbi kale marabi badar aabudaayey, mana ii ah rabbi aan ilaahay ahayn. wa bimuxammadin, muxamedna rasuulan rasuulnimaan uga raalli noqday. wa bilislaami diinan, diinkana islaamka ayaan raalli uga noqdo. diin kaloo ku dhaqmaaya ma laha. kirishtaankaan rabin, tan yuhuudda, buudiyada, tan hunuudda, midda mushrikiinta, midda majuusa, midda saabi'iinta, wax aan raba ma laha ilaa diinka islaamka ma ahane. waayo ina diina cinda allahi alislaam, diinka allaagtiisa raalliga looga yahay waa diinka islaamka. waman yabtagi hayra alislaami diinan falaa yuqbal minhu buu dhahay ilaa subxaanahu wa tacaala. wax laga aqbalaayo malaha. yaquulu dalika wuxuu dhahayaa caqiba tashahudi lmu'adini, mar allaala markuu mu'adinka dhammeeyo aadaanka ciribtiisa ayuu ducadaa dhahaa. yusallii intaa ka gadaal wuxuu ku sallinayaa cala alnabiy, nebiga gadaashiisa nebiga ayuu ku sallinayaa bacda faraaqihi min ijaabati lmu'adini. mu'adinka mar allaala markuu aadaanka dhammeeyo ka gadaal. salligan ma aha ninka mu'adinka markuu aadaamo oo aqimka la aqimaa intuu istaago allaahumma salli u aqrinaayo iyo rabbi salli, waa bidca. waa waxaan diinta islaamka sal ku lahayn. midaan laguu tilmaamayo waa marka mu'adinka aadaanka uu dhammeeyo. aadaanka markuu dhammeeyo naftaada nebiga ugu sallinaysaa sala allahu calayhi wasalam. mu'adiniinta badankooda mar allaala markay aadaanka dhammeeyaan ayay yidhaahdaan ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima. waa bidca ayadana.
waa shay aan diinta sal ku lahayn. allahu akbar oo ka bilowdaa aadaanka. laa ilaaha ila allahna waa ku dhaqaadaa, wax kaloo aadaana ma jiro. aayaddu waa aayad xaq ah oo ilaahay ku tilmaamay suurat alaxzaab, laakiin macno gooniya wadataaye ma aha aadaanka in loogu talagalay. salligaana ma aha mar allaala marka uu aqimayo inuu akhriyo shicirkii aan soo tilmaamay ama salliga dadka gobol ka mid ay markaa ku salliyaan. maca daalika qofku waa inuu ku salliyaa waa bacda firaaqihi min ijaabati almu'adini. yaquul wuxuu dhahayaa ka gadaal allahuma rabba hadihi dacwati taamati wاsalaati alqaa'imati aati muxamadan alwasiilata wاlfadiila wabacadhu maqaaman maxmuudan aladii wacadta inaka laa tukhlifu almiicaad. saasuu markaa leeyahay allaahuma ilaahayow rabba yaa rabba rabbiyow haadihi midaan addacwati taamati wicitaanka taamka ah ee dhammaystiran rabbigeediiyow iyo wasalaati alqaa'ima salaada qumaysa mardhow rabbigii iska lahow aatisii muxamadan nabi muxamed alwasiilata gaarsiin iyo walfadiilata fadli sii wabacadhu u soo bixi maqaaman maxmuudan maqaam la mahdiyo alladii wacadtahu kaasoo ku ballanqaaday waayo inaka adiga laa tukhlifu almiicaad. miicaadka mid guud yeelo oo ka baxa markaa mi'id sidaa ayaad dhahaysaa. ilaa nebiga ayaa yidhi haddaad aadaanka maqashaan wuxuu mu'adinka dhaha ka daba dhaha, intaa ka gadaal igu salliya, ka bacdisa ducadaan akhriya. markaad akhrisaana qofkii ducadaan akhriya xalad lahu shafaacatii yowma alqiyaama. mu'miniinta ama bani aadamka ilaahay abuuray hal addoon ayaa ku jira. maqaamkan ayaa loo ballan qaaday inaan aniga ahaa rajaynaa buu dhahay nebigee. marka aadaanka la dhammeeya ani ilaahay ii weydiiya oo dhaha aati muxamadan alwasiilata waalfadiila. waa meesha ilaa uu ka dhacay casaa rabbuka an yabcadaka maqaaman maxmuudan. waxaa la arkaa oo xaqiiqa ama mudan ilaahay inuu kaa soo bixiyo maqaam maxmuud oo markaa la mahdiyo. yadcuu linafsihi naftiisa ayuu u ducaysanayaa qofka bayna alaadaani waaliqaama, aadaankii aqimka inta u dhaxaysa. waayo fa ina ducaaa ducaa xiina idin wakhtigaa la ducaysta laa yuraddu ma la soo celinaayo. aadaanka iyo aqimka inta u dhaxaysa ducada la ducaysto ilaahay waa ajiiba subxaana wa tacaala. haddaba in lagu ajiibo waa xaqiiqo. haddaad la timaado shuruudii ducada loo ajiibayo waa xalaal cunnimo kow. midda labaad waa inaad ilaahay si khushuuca aad u tuugtaa. midda saddexaad waa inaad ilaahay waxaad ka baryaysa wax xumaan iyo dembi aan ahayn. saddexdaa haddaad la timaada iyo wakhtigiina aad waafaqdo ilaahay waa ku ajiibay. matalan waxaad ka barisay maba helinba, ha isdhihin ma lagu ajiibin. rasuulku waa lagu ajiibay ayuu yidhi maa lam yastacjil, qofka hadduusan istixjaal la imaanin. istixjaalka maxaa laga wadaa baa la dhahay nebiga. markaasuu dhahay wuxuu leeyahay dacawtu waan tuugay maantao dhan aan tuugaa ilaahay mana arkin inuu i ajiibay. maba la ajiibay iyaga. shalay ayaad baryo bilaabay ilaa hadda waxaan helay ma aha. haddaan saanan dhihin ilaahay waa ku ajiibay. saddex mid waaye. waxaad ilaahay ka barisay isla markii in lagu siiyo. midda labaad inaan lagu siininoo dhib weyn oo kugu soo socdo ilaahay kaaga celiya subxaana wa tacaala ma dayacmin. midda saddexaad inaan lagu siinin dhibna lagaaga celin laakiin laguu kaydiyo qiyaamaha lagu siiyo. ilaan aakhira marka la taga dadaa tawaab iyo ajir badan la siina. وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.